rabnaa inaan halkan aad ugu mahadnaqno dadweynaha sharafta leh ka soo qayb galay soo dhaweynta wasiirka oo casuumadda naga aqbalay marka waxaan ku soo dhaweynayaa gudoomiyaha jaaliyadda aadan cali ducaale oo arrintan soo qaban qaabiyay aadan cali ducaale ku soo dhaweey marka ugu horeysa waxaan rabaa inaan soo dhaweeyo wasiirka wasiir ku soo dhawow waxa weeyaan jaaliyadda UK waxaan u malaynayaa waa first time aan cidi ka maqnayn marka la yiraahdo reer Somaliland adaan nasiib u helay runtii dadaal fara badan iyo hawl fara badanna waad u gashay in la isu yimaado oo maaragtay nasiibkadi waxa ku wehelisay shaqo marka waxaan ku leenahay soo dhawow siday kala ahaayeen marxaladaha ay soo martay Somaliland iyo dadka deganiba oo aan leeyahay ilaa hadda waan wadnaa ama waa la wadaa dadaaladii la isugu keenayay oo maaragtay ku suurtagelaysay inay wax wada qabsadaan waxaan jeclahay annagu waxaan hadda ku yidhi qolyahayaga meeshan ilaa aynu inagu isu keenno wasaanu isku nidhi meeshan inagu unbaa isu keeni karnee aanu ku soo dhawaano oo qaar badan annaga naga mid oo leh war nimankii weli si fiican waxbaynu dhammaysane warban horta aynu isu keenno nimanka oo bal dadka aynu horta isu keenno bismillaahi raxmaani raxiim waxaan u malaynayaa waxaynu yeedhaynaa aadan xadi jaamac oo aadan carabka ku dhufto qabanqaabada xafladda raggii aad uga soo shaqeeyaa ku soo dhawaada waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaynu maanta wasiir yaasiin xaaji maxamuud xiir aynu halkan ku soo dhaweynayno waxay farxad gaara leedahay in Somaliland aan cidi ka maqnayn dadkii reer Somaliland ay jaaliyadii arrintaa guusheedana waxa leh bariga Somaliland oo uu hogaamiye u ahaa aadan cali ducaale oo halkan iminka idinla hadlayay iyo team fara badan oo halkan fadhiya oo Somaliland maanta iskugu yeeray aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa intaa waxa aan kaliya ii raacaya inaad ka soo qayb gasheen oo aad naga aqbasheen oo aad timaadeen aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin anigu hadal badan oran maayo soo dhawow wasiir waa dadkaagii waa maanta Somaliland ku dhameystiran aad iyo aad baad u mahadsantahay soo dhawow assalaamu calaykum waraxmatullah laba aadan ba aad iyo aad u mahadsan yihiin waxaan u yeedhayaa aynu ku furanaynaa shirka qoladii qabanqaabada ahayd ama hawsha inoo soo qabatay suldaan axmed diiriye guuleed oo ah suldaanka guud ee markaa qurba joogta khiyaartiina halkan isugu timi ee sharafka leh ee ka soo qayb gashay xafladan aynu ku soo dhaweynayno wasiirka amuuraha gudaha Somaliland Dr. Yaasiin aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa sida wanaagsan ee sharafka leh ee uga soo qayb gasheen waxaan leeyahay wasiir soo dhawow sida odayaashii hore sheegeen Somaliland cidi kaama maqna waa lagu sharifay waxa lagu sharifay hawsha aad qabatay iyo ta aad ku jirto iyo ta laga sugayo inaad qabato waxaan u yeedhayaa suldaan cali gara oo ah suldaankii gobolka Sanaag marka waxaan leeyahay suldaan ku soo dhawow aad baan ugu faraxsanahay waan ku soo dhaweynayaa sida aadan sheegayay dadku way soo dhawaadin waxa noo muuqday halkaas in wax bilowdeen daawal baashu galbeedun bay jirtay soo afaantay ma geedka rag la yiraahdana garbahaaga laga eega hal galbeed jirta daana ku dawaqi mayno soo afaantay ma marka waa ma sha Allah halka waxa ka muuqata cadaalad anigu kale waa markii ugu horeysay xaflad ka qayb galo nin hadal cad baan hadalkayga lama gabado niyad baan u leeyahay Somaliland rajo weyn baan rajaynayaa mar haddayba bariga galbeed isfaantay diciis u dhaantaa ma jirtee bal wasiir waxaan naga gaarsiisay madaxweynaha inta hadhayna hal dhamaystiro soo dhawaata annagana la waayi maayo fariino fool ma dhaqdo meelo tahay dadku haddaan is wadan qurux la yeelan maayo waan ku soo dhaweynayaa waxaan ku xijinaynaa ugaas Haaruun marka hore waxaan soo dhaweynayaa wasiirka arrimaha gudaha Mr. Yaasiin Xaaji Maxamuud oo leeyahay ku soo dhawow UK intaas oo xaflad baan ka soo qayb galay Somaliland
waa maalintii ugu horreysay aan arko Somaliland oo loo wada dhan yahay oo meel wada fadhida waa eco Somaliland waxa weeye waa meel aynu dimuqraadiyad qaadanay qabiilka inaynu la dagaalano aan doonaynaa haddaan qubad jooganahay labada arrimood aad iyo aad bay noo yeeleen talabaad waxaan raacinayaa wasiirka oo intuu joogay wax qabad badan ka muuqatay isna aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad waxaan leenahay wasiir soo dhawow hadda waxaan u wareegaynaa xagga xukuumadda waxaan u yeerayaa maxamed warsamo boos oo ah safiirka Somaliland u fadhiya UK maxamed warsamo boos halkeen wuxuu u baahan yahay in la horumariyo dhaqaale u baahan yahay insha Allah waxaad moodaa in dariiq weyn ayaa iminka inoo furmaya oo xagga dhaqaalaha ah in dadkeenu isu yimaadaan oo gacal kala raagay baynu nahay aynu si wanaagsan u wada shaqayno oo aynu mid noqono oo hadeed maayo taasa cid walba ama qof walba ama dad walba oo inaga mid ay u baahan yihiin maanta dagaal uma ayna baahnin dagaaladan yaryar ee meelaha ka soo socda waxaan rajeynayaa inay iska qaboobaan in la wada hadlo in lagu dadaalo oo wasiirka waliba khaasatan waxaan farayaa in arrimahan yar ee ka soo socda sool galbeedkeeda inuu aad iyo aad wax uga qabto inkastoo gacanta kula jiro oo isku dayayo inuu aad wax uga qabto hadda waxaan u yeeraynaa Axmed Cali Askar marka koowaad fagaaraha kan waxaynu isugu nimi maanta sharafka iyo soo dhaweynta wasiirka oo wasiiradu iskuma jiraan wasiirka arrimaha gudaha ee bari Soomaal sidaa darteed waxay la tahay munaasabad weyn oo reer bari Soomaal uu isugu yimid ayaa munaasabad u tahay raggeena halkan deegaanka degan isaga laftiisu deeyna kama dheera deegaankana wuu inala yahay inkastoo wasiirkeeni arrimaha gudaha ee bari Soomaal yahay waxay la tahay hadalka mucdiisa waxa iska leh wasiirka waynu warkii ka sugayno dalkii iyo dadka inagu hadday soo dhaweyn tahay salaadiini iyo akhyaariba soo dhaweynta afkeena inoo ku sheegtay anigu waxaan oran lahaa dhulkeennii dhibaatada maanta ugu weyn waa abaar raxmaadkii eebun baa inaka qaadi kara raxmaadkii eebna waa inoo bilaamay bil khayr dhahaya ilaahay haynoo badiyo mid khayr iyo baraka leh intaa ka sokow waxaynu ku tanaadaa wax ku noqonaynaa waa nabad weeye wasiirkeena arrimaha guduhuna nabadda kii dhaabayay oo haddana ku dadaalaya ayaynu ka rajaynaynaa madashan maanta dadka qabanqaabadeeda lahaa inoo maamusay aad baan maxay too ugu mahadnaqayaa qabanqaabada ay inoo hagaajiyeen wasiir waxaan filayaa dee warka mucdiisii nabad iyo khayrkeed barwaaqe iyo shar la'aanteed adaanu kaa sugayna wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu hadda waxaan halka uga yeerayaa maxamed xasan qalile aniga haray looma hadlee waxaan erey u maran markaa meesha ka yarjeedinayaa wasiirka maanta inoo yimid ee ummadii kulmiyay ayuun u duceynaynaa in ilaahay muqaalfada iyo talada iyo tayada ilaahay ku hagaajiyo raxmaadka xaajigu sheegayna ilaahay mid khayr inooga dhigo shirkuna waa inoo furan yahay marka hadda waxaan ku xijinaynaa oo aan mar labaad siinayaa maxamed guuleed dhammaan wasiirkeena daaqiliga madaxda meesha isugu timi dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waqtigu waa yar yahay waxoogay taariikhan isla ka sheekee laakiin dee waqti maynu hayno kelmad baan se ku darsanayaa aan hadalkayga kusoo gaabin doono waxa weeye waxaan anigu garaadsaday ama kacaamay anigu horta markayga hore waxaan ahay nin 3 gobol ka tirsan gobolka Togdheer gobolka Saaxil iyo degmada Sheekh waxay la tahay wasiirku inuu fahmaayo markaan ahay dariiqadii Sheekh baan ahay inuu si wanaagsan u fahmaayo baan filaya waxaan anigu garaadsaday iyadoo reerka harti oo dalka wada haysto oo gobolada oo dhan iyo meel kasta oo joogo laga shaqeeyo su'aalaha markii dambe aan anigu isweydiiyay waxaan dhahdaa reerkii harti maxaa ku dhacay reerkii harti maxaa ka dhacay reerka aan ka soo jeeda mooyaane oo de odayga mooyaane ilaa awowgayga afraadna reerkaas aan ka soo jeeda waxaan ka ahay reerka Sodog waxaan ka ahay Seedi waxaan ka ahay awow waxaan ka ahay abti waanu ku mahadnaqaynaa sacaadatul wasiir aad iyo aad baad u mahadsantahay
waqti adag baad la kurantay waan kula socdaa maalmaha dhulka wareegaysay dhibaatooyinkii taagnaa waqtiga oo adkaa abaarooyina haystay waxa tahay kii ugu hawsha badnaa dalku waxa weeye waxa xukumo wasaaradda dakhliga dawlad haddaad maqasho wasiirka dakhliga waa sidan aynu haddaynu noqon basho home office ku noo xukumo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenku iska demoqraasi oo madaxtooyadii laakiin hawshu waxa weeye wasiirka dakhliga ninkii garanayo baa garanaya waxaan leenahay horta marka hore waad nasiib badan tahay ilaahayna ha ku fudaydiyo ilaahay subxaanahu wa tacaala roobkina waa kaa da'ay waad nasiib badan tahay maanta waa taa Soomaaliland oo dhammi isugu ka wada timi alxamdulilaahi rabbil aalamiin ilaahay loogu mahadnaqaa iyadoo barnaamijku iska sii gabagabeeyay halka waxaan uga yeedhayaa maxamed cawil oo aan u malaynayo xagga dambe inuu fadhiyo maxamed ku soo dhawow waxay ila tahay hadalka intii nuxurka ahayd la wada yidhi oo waxba kama harsana laakiin maadaama aynu qadaynay in dee kolley aynu iska kaftanno kaftanku waa waajib beesha dhexe ay meeshii isku yar xaydaantee war haddaad rabtaan ictiraafkan aad raadinaysaan ictiraafkii meel fog ma jiro ictiraafkii inagu aan gudaheena is ictiraafno oo cadaaladda iyo ha lagu soo dabaalo waayo waxaan ogahay xataa idinka laftiinni beeshii dhexe lafteedii ayaa qudheedu aan khayr badan isku qabin qoladeena dibadunbaa isle beeshu waa beesha dhexe qudheedu iyada qudheedu way isku duldulman tahay marka ilaa aynu dulmigaa ka saarno meesha waxba inoo hagaagi maayaan waxay ila tahay sheeko Hargeysa caan ku ah oo saddexda arday ee iskuulkii Nusaaciha absaamay markii macallinkii oo ilinka taagan ay u yimaadeen kii horeysay uu yiri xagaad maxaad ku soo absaantay markaasuu macallin shilinkii Nusaacaha iga lumay kii kan uu yiri waladna maxaad ku absaantay markaasuu yiri shilinkaasaan la baadi doonayo kii saddexaad buu yiri waladna maxaad ku absaantay shilinkay baadi doonayeen baan ku taagnaa buu marka beesha dhexe ictiraaf bay doonaysaa qolada reer Booramela waa la baadi doonayaa qolada yada hartina waa kaga haddaba shilinkii aan ka dhaqaaqnay waar cadaaladda aan ku soo celino annagu maanta markii wasiirkii arrimaha gudaha aanu yeelanay dee mucaarad iyo muxaafidba waa u yeedhnay waa soo casuulay idinku ama xusbi ahaan baad yar ama reer ahaan ama waxbaad maaragtay marka madaxdu timaado laakiin annagu mucaarad iyo muxaafidba way isugu yeedhnay waxa weeye waanad ku mahadsantihiin ajiibka aad soo ajiibteen aad baan ugu mahadsannahay dadku waa dad is ah idinkaanu isxignaa cid kale aanu isxignaa ma jirto innagaa waxa innagay dani inaga dhaxaysa innagaa xumaato iyo abaartu ina wada saamaynaysaa oo wixii inagu yimaadaaba ina wada saamaynayaan haddaba innagu haddaynaan is ictiraafin cid dabad laynaga ictiraafi maayo inagu horta aan is ictiraafin dowlado badan baa jiro aan ictiraaf haysanin oo shaqeeyo oo systemkooda iyo wax waliba shaqeeyaan baa jira marka intaynu taa waqti iskaga luminayno aan waqti ku lumino sidii cadaalad aynu dalka uga samayn lahayn ku soo dhaweynaynaa faarax xasan jaamac faarax xasan jagac wasiir soo dhawow waad mudan tahay runtii in Soomaaliland isugu ka timaado madashana lagu soo dhaweeyo laguna waraysto anigu Soomaaliland baan u badnahay oo waan wada joognay wuxuu qabtay iyo wuxuu gudo iyo shaqadu galayna waan ogahay wasiirka dakhliga wuxuu ku darsaday runtii oo ugu horeysay geesinimo iyo ku dhac oo dhulkii uu nabadaynta markuu waday dhul badan buu ku dhiiraday oo wax weyn ka qabtay ilaahay ha ka jazaay mariyo iminkana soo dhawow wasiir iskaashiga iyo wada jirkeenu kolleyba kala tegi maayo Soomaalinimada oo waynu iskaashan doonaa war balse laakiin waxna gacantaada ay ku jiraan waxna gacantaada kuma jiraan horta marka hore waajibku wuxuu ka saaray waxa gacantaada ku jira inaad sugto
war inagu teena marka hore aan sugno haddaynu doonayno in Soomaaliya wax noqoto aan inagu wax noqono oo teena sugno ilaahayna haynoo hirgeliyo hadda waxaan u yeeraynaa Qaasi Saleebaan waxaan leeyahay Qaasi Saleebaan ku soo dhawow waxaad moodaysay in carabka aad loola dhacayay beelaha dhexe iyo hartiga laakiin Qaasi waa nin fiqishin ah waa nin reer Soomaaliland ah marka waxaan leenahay Qaasi soo dhawow waa dhab mucaarad iyo muxaafidba waa loo dhan yahay waxaan u maleynayaa qaar badan oo idin ka mid yihiin ay igu arkeen anigoo xisbiyo mucaarada u ololeynaya laakiin waxaa muhiim ah in la ogaado wasiirku marka uu wasiir noqdo wasiir qaran weeyaan mucaarad iyo muxaafidba isaga ayaa matala wax badan baa laga dhawaajiyay saami qaybsigu waa aasaaska deegaanka iyo horumarka bulshada waxaan markasta nidhaahnaa saami qaybsiga ha lagu soo noqdo beelaha dhexe iyagu hadday iskala qaadayaan iyo haddii kaleba annagu waxaanu u tirinaynaa seed bursi baanu u tirinaynaa waxaan leenahay saamiga inoo qaybiya si waafiyana inoogu qaybiya haddii aad doonaysaan shilinkaa la lahaa waa lagu taagan yahay inaan ka dhaqaaqno intaas haddaan ka gudbo roob baa inoo da-ay ilaahay roobka iyo raxmadda ha inoo wado waxaan kale oo aan rabaa aan kaga faa'iidaysanayaa jaaniskan inaan halkan ku xuso waxaan arkayay warar saxaafadda ka baxay oo la leeyahay deegaanka aan ka soo jeeday adha caddeeye oo leh waxaan wasiirka kala noqonay kalsoonidii ama cambaarayna ee kaga imanaysay waxaan kuu sheegaynaa sidii lagaaga doortay deegaanka ayaanu ku garab taaganahay kuula shaqaynanaa hiil iyo hoona kula garab taaganahay wasiir dadkaagii baan nahay garashada waxaad moodaa barnaamijkeenu 90% inuu isugu biyo shubtay war cadaaladda iyo saami qaybsiga hal loo ogaado marka taasuun baa horta hadalkeena abaad moodaa hadda ma taasaa horta hadda waxay noo tahay dhaxyaal in cadaaladda loo ogaado oo wixii shalay laga soo jabhadeeyay maanta dad ka jabhadeyn karaan haddii cadaalad darro timaado marka hadalkii anigoo soo koobayo ama soo gabagabeynaya waxaan ugu yeerayaa wasiirkan ku soo dhaweynayaa waxaana aad uga cudur daaranayaa insha Allah dadkii liiska ku qornaa oo aanu haleeli kar weynay in la siiyo mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leenahay apologies marka waxaan soo dhaweynaynaa wasiirka halayla soo dhaweey wasiirka ku soo dhaweey salaadiinta garaadada madax dhaqameedka kale waxgaradkiina halkan isugu yimi akhyaarta ah salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib waxaan u mahadnaqayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala halkan isugu keenay maanta ina kulan siiyey waxaan kaloo u mahadnaqayaa waxgaradka xafladan soo diyaariyey ee soo qabanqaabiyey ee kasoo tashaday sida wanaagsan u soo agaasimay aad baad u mahadsantihiin dhammaantiinba intiina kasoo qayb gashay ee timina waxaan arkaa inaad soo ajiibteen oo aad xafladda tan igu soo dhaweysaan aad iyo aad baan u faraxsanahay runtii anugu waxaan ku faraxsanahay sidaa dee aad ugu celceliseen waa aniga waxay ugu ahayd kadisa igu ahayd inay tahay maalintii ugu horreysay ee la isu yimaado ee qurbaha reer Soomaaliland qurbajoogka reer Soomaaliland ay isugu yimaadaan xaflad ay u dhan yihiin oo ku midaysan yihiin oo ama wasiir ama dawladda xubno ka mid ah ama qaranka ka mid ah inay ku soo dhaweeyaan inay maanta ugu horeyso runtii dee farxad weyn oo gaara maalin gaar oo taariikhda igu qoran oo si gaara u xuso ayay noqon doontaa wayna ii tahay runtii marka aad iyo aad baan mataqaanaa runtii aad ii qalbi qaadeen oo aan runtii arrintaas ay mataqaanaa ii farax gelisay intaas waa intaa anugu dhowr arrimood oo gaaban oo ku saabsan kulligoodba duruufaha dalkeena ka jira ayaan rabaa inaan isdul taago oo aan xoogaa warbixin wixii aan idinku dhaamo aan idinka siiyo wixii kalena dee wixii aynu dood iyo su-aalo iyo aynu u daysano arrimahaas waxay ku saabsan yihiin aan rabo inaan wax ka idhaahdo abaaraha inkastoo ilaahay raxmaadkiisii inoo shubay alxamdulillahi rabbil caalamiin oo roob waddanka badankiisii waliba khaas ahaan gobollada bariga ee awal aan roob ka jirin roob laxaadii uu ka daay haddana abaartu dee roobka waa inoo daay laakiin waxaan aaminsanahay in abaartii inay heshay ay saameyn weyn muddo badan dalkeena kusii yeelan doonto oo raad
muddo ina sii saameeya inay ku yeelan doonto taas marka abaartii waxbaan rabaa inaan ka idhaaho waxaan kale oo rabaa inaan wax ka idhaaho xaaladaha dhaqaale ee dalku halka ay marayaan iyo duruufaha dhaqaale ee dalka haysta waxaan kaloo rabaa inaan wax ka idhaaho waxaad ogtihiin duruufo colaadeed iyo qalalaasayaal iyo xiisado deegaanada qaarkood ka taagan oo dalka saameeyey runtii deegaan wax ku ekaanaya ma jiro imika meesha wax ka dhacaan dee wixii oo dhan bay saameyn ku yeelanayaan dhaqaalihii dalkay ku yeelanayaan wax walba way ku yeelanayaan markaa qudhadkooda bal kuwa ma aha in loo nisbeeyo un deegaan keliya waa kuwo cid walba gaadhaya qudhadkoodana bal kuwaana inaan warbixin idinka siiyo maadaama gaar ahaanna ay howlahaasi wada yihiin howlo dee aniga ila xidhiidha oo shaqooyinka aan dowladda qaranka u hayo arrimo la xidhiidha inaan idinka idhaaho waxaan rabaa horta marka horse inaan ugu horeeyo fariimihii labada oday fareen ee madaxweynaha iyo dowladda ay fareen waa gaadhsiinayaa insha allahu waa ay u qoran yihiin waana gaadhsiinayaa taas waa taa abaartay haddaan marka ka bilaabo dalka abaar gaagmareebta ah baa ka dhacday intii abaar gaagmareebta ah ayaa ka dhacday bishii Oktoobar markii aanu aragnay xaaladda meesha ay marayso oo gugii hore aanu jirin oo dayrtii tagtay oo aanu aragnay in waqtigii gabagaba yahay aanu abaarta ku dhawaaqnay isma aanan lahayn dhowr bilood gudahood dad iyo duuyo waxba haraya waayo xaaladdu aad bay u xumayd aad iyo aad bay xaaladdu u xumaatay xaalad xun baa noo muuqatay iyadoo aan roobkii kala dhaweyn oo degu waxa la sugaa oo yahay kan imanka maanta inoo da'ay ahayd ka la sugayo markaa duruufo arrin aad u qaraadh baa noo muuqatay oo aan markaa ku dhawaaqnay hase yeeshee alxamdulilaah ismalihii xoolihii dhibaato badan baa gaadhay oo iyagu dhammaad bay in badan meelo badan ku dhow yihiin laakiin ismalihii dadkii cid baa gaajo ama haraad u dhimatay gaajo ama haraad alxamdulilah ismalihii waa dhici karta hadday jiraanna waa wax waa tiro aad u kooban qof iyo laba iyo saddex iyo afar haddii la tiriyo lagama badin karto haddayba dhacdayba ma se aaminsana inay dhacday oo ilaahay loogu mahadnaqo taa anigu waxaan qabaa inay sabab u ahayd dadaal ballaadhan iyo gurmad ballaadhan oo xukuumaddu ay kow ka tahay oo xukuumaddu ay dowladda waddanka arrimahaas oo kale markay dhacaan maamulka iyo dowladda markaa joogta say wax u habayso uun ila leadership bay u baahan tahay hoggaan bay u baahan tahay cid wax habaysay u baahan tahay waxaan qabaa inaanu annagu aanu dowlad ahaan qayb weyn aanu ka ahayn ama sabab u ahayn oo gurmadkii aanu bilownay inuu sababay in dadku badbaadaan oo maxaa la yareeyo dhaawacii iyo dhibaatadii ay keeni lahayd ay dadka ay keeni lahayd inaanu annagu sabab u ahayn qayb ka ahayn ugu ballaaran waxaan marka halka kan idinku hayaa bal sidii waxaan wax u gaarsiinay intii awoodayada ahayd waxyaalihii aanu qabanay oo aan dee soo koobayo oo ah bal organizationkii de waanuba samaynay organization ballaaran baanu samaynay waxqabadkii min heer qaran ilaa tuulo inta ka dhaxle waxaan u samaynay nidaam dadka wax ku gaadhaan